the greatest thing that ever lived. I don't have a mark on my face, and I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. If God's with me, can't Hideman, subscribe now. محمد علي كلاي وفيريان عانا oo u dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo dhaca koonfurta Mareykanka taariikhdu markii ay 12 January 1945 Kalaay oo ka dhashay qoys haysta diinta Masiixiga ayaa waxay waalidkiisu ugu wanqaleen magaca KCS Mercedes Kalaay GR Maxamed Cali waxa uu ku guuleystay tartanka feerka miisaanka culus tiro ka 3 jeer ah sidoo kale waxa uu muddo 20 sano ah ee ugu dhex jiray ciyaaraha feerka waxa uu ku guuleystay inuu noqdo horyaalka adduunka sanadihii 1964 iyo 78 sanadkii 1999 ayaa kale loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee caalamka soo mara qarnigii 20aad Maxamed Cali Kalaay waxa uu caan ku ahaa goysmada ama gasta faraha badan iyo feerka degdega taas oo dib u keeni jirtay feeryahanada isaga la tartamaya 1964 ayay ahayd markii ugu horeysay uu Kalaay si la yaab leh ugu guuleystay feeryahankii ahaa horyaalka miisaanka culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston with a left lead play will counter with a right over the left and drops the challenger. waxaanu kala isla mar ahaantaas la wareegay suuqa cadaynta u noqday horyaalka adduunka ee feerka miisaanka culus Kalaay oo markaa da'diisu ahayd 22 sano ayaa noqday feeryahankii ugu da'da yaraa ee ku guuleystay suuqa feerka miisaanka culus ee taariikhda adduunka soo mara 22 years old. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. dayar kadib markii Kalaay uu noqday horyaalka ayaa waxa uu si lama filaan ah warbaahinta caalamka ugu sheegay inuu qaatay diinta Islaamka Shortly put, are the black Muslims taking you for a ride? I said not black Muslims, Muslims. I beg your pardon, are the Muslims taking you for a ride? No, the white people have been taking us for a ride for the past 400 sanadkii 1965 markii uu Kalaay si rasmi ah ugu biiray diinta Islaamka ayaa waxa uu magaciisa hore ku bedelay magaca Islaamka ee Maxamed Cali Kalaay waxa uu qaatay diinta Islaamka isagoo aan lahayn wax tanqaas ah ama qarsoon waxaana dhici kartay inuu Kalaay talaabadaas ku waayo taageerayaashiisa aadka u tirada badnaa laakiin waxaa dhacday taasi bedelkeeda oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyada uu Kalaay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba ee aad u sii kordhay sanadkii 1966 ayaa Maxamed Cali Kalaay laga qaaday imtixaan ku saabsan caafimaadkiisa waxaana la sheegay in uu ka qayb geli karo dagaalka ay dawladda Mareykanka qayb ka ahayd oo xilligaa ka socday dalka Vietnam taasina waxay la macno ahayd in haddii uu Kalaay dagaalka ka qayb qaadanayo uu guud ahaan ka tago feerka iyo waxbarashadiisa kalaba laakiin Kalaay oo lagu yaqaanay dhiiranaan badan ayaa qaadacay arrinkaas oo waxa uu diiday inuu dagaal la galo sida uu hadalka u dhigay Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. He refused induction on the grounds of his religious convictions on war. Kalaay waxa uu sidoo kale si cad u sheegay inuu geli ahaan ka soo jeedo dagaalka Mareykanka ku qaaday Vietnam oo masaafo ahaan ka fog dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu dagaalkaas uu yahay mid gardarro ku ah shacabka reer Vietnam sanadkii 1967 oo ahaa markii Kalaay uu gaaray guulihii ugu badnaa ayay dawladda Mareykanku ka xayuubisay suuqii horyaalka feerka miisaanka culus ee adduunka sababtoo ah waxa Kalaay lagu soo eedeeyay inuusan wadani ahayn bacdama uu diiday ka qayb qaadashada dagaalka ka socda dalka Vietnam muddo dhan 3 sano Kalaay kama uusan qayb gelin wax tartan feer ah laakiin waxa uu feerka mar kale dib ugu soo noqday sanadkii 1970 mid ka mid ah feerarka adduunka ugu caansan ee The Rumble in the Jungle oo Maxamed Cali uu qayb weyn ka ahaa ayaa bishii October 1974 lagu qabtay caasimadda dalkii lagu magacaabi jiray Zaire Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee Kinshasa Kalaay oo ahaa tartamo u socday inuu dib u soo ceshto suunka horyaalka feerka miisaanka culus ayaa wareegii 8aad feer la tuuray feeryahanka George
Foreman oo markaas ahaa horyaalka adduunka. Kalay waxa uu sidaas darteed mar labaad dib ugu guuleystay suunka horyaalka adduunka ee miisaanka culus. sidoo kale waxa uu Kalay mar saddexaad sanadkii 1978 ku guuleystay inuu dib u hanto suunka horyaalka adduunka kadib markii uu dhibcatirsi kaga guuleystay feeryahankii Leon Spinks. Maxamed Cali Kalay ayaa ku dhawaaqay sanadkii 1979 inuu ka fadhiistay feerka. si kastaba ha ahaatee waxa uu Kalay mar kale sanadkii 1980 dib ugu soo laabtay feerka. waxa uuna tartan feer kaga hor yimid horyaalka adduunka Larry Holmes. Kalay oo markaan rabay inuu markii afraad ku guuleystay horyaalka adduunka ayaa waxa ciyaarta wareegii 11aad joojiyay tababarihiisa Angelo Dundee oo garwaaqsaday in feeryahankiisa ay soo gaareen dhaawacyo xoogan. Maxamed Cali Kalay waxa uu gebi ahaan ciyaaraha ka fadhiistay horaantii 1980 isaga oo markaa da'diisu cagacageynaysay 40 sano. dhowr sano kadib waxaa Kalay laga helay cudurka laleemada Parkinson's disease. Maxamed Cali Kalay waxa uu geeriyooday 3 Juun 2012 Allah u naxariisto. Cali Kalay waxa uu maalin Jimco ah oo taariikhdu ahayd 10 Juun 2012 lagu aasay qabuuraha Kevin Cemetery oo ku yaala magaaladii uu ku dhashay ee Louisville, Kentucky. Kalay waxa uu safka hore kaga jiraa feeryahanada iyo shakhsiyaadka kale ee saameynta weyn adduunka ku yeeshay qarnigii 20aad. taariikhda adduunka ayaa Maxamed Cali Kalay mar kale